waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay aqoonyahada Jamaal Cali Xuseen oo ah gudoomiyaha bangiga caalamiga ah ee City Bank laantiisa wadankaasi Tanzania. Siyaasiga Jamaal Cali Xuseen ayaa madaarka waxaa kaga hor yimid dadweyne aad u tiro badan oo kamid ah qaybaha bulshada kuwaasi oo ay horkacayeen salaadiin siyaasiyiin cuqaal iyo waxgarad kale oo aad u tiro badan. kadib markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ah ee magaalada Hargeysa mudane Jamaal Cali Xuseen waxa uu mid u gacan qaaday dadweynihii ku soo dhaweeyay halkaasi. kadib waxa uu la hadlay saxaafadda isagoo ka warbixiyay waxa uu la xiriiro socdaalkiisu. waxa weeyaan waatii dhawaan madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaayo oo uu siyaasadii furfuray waakii ogolaaday in ururo laga sameeyo wadanka ilaa hadda ururo badan baa wadankii laga sameeyay. waa shay fiican oo soo kordhay somaliland. waxa weeyaan nin walba isla hayay ama qof kasta oo isla hayay ee doonayay mar inuu gagida siyaasadda soo furo waxay siinaysaa chance wanaagsan bay siinaysaa. laakiin anigu waxaan doonayaa halkan ka cadeeyo inaan urur nin furanaya inaan ahayn halkaan u socdaa in ay tahay udub oo ah xisbigii qaran waa xisbigii ugu horeeyay ee somaliland laga aasaasay marxuumkii Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal haliyigii madaxweynaheennii hore waa xisbigii uu ku degay. xisbigaasi oo aan fikrad ahaan anigu aad iyo aad ugu dhawahay uguna dhawaanay in badan ba ayaa aan jeclaystay inaan xisbiga dhexdiisa ka mid noqdo dadka ka tartamaya jagada madaxweynenimada. waxa weeyaan sababta aan udub u doortayna waxa weeyaan udub waxa ka dhaxarkay inay tahay xisbi dimuqraadiya oo dhexdiisa dimuqraadiyad ay ka jirto oo waliba nimankii xisbiga maartay garwadeenka u ahaa ay ogolaadeen in dhiig cusub xisbiga lagu shubo. taas waxa weeyaan ma aha wax la iska qaadanayo. tartan baa jira rag kala jira oo iyagu laftirkoodu damaaci uu kaga jiro wayna wanaagsan tahay. anigu tartanka ayaan jecelahay. tartankuna waa wax wanaagsan. qof walba waxa laaliyo waxa uu dadka uu ka dhaadhicin karaayo ama uu doonayo inuu soo bandhigo sidoo ummadda ugu horumariyo inay dadka uu ka iibiyo. marka hore inuu xisbiga dhexdiisa ka dheeyibino marka xisbigu qofka ay u arkaan inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ayuun baa wanaagsan in dadkuna markaa ay isku wada afkartaan. waxa weeyaan sidaynu ognahay Somaliland waxay soo martay marxalado fara badan. qof waloo meesha maartay ama maamul ha noqoto ama madaxweynaha ha noqotee meel bay soo gaarsiinayeen. laakiin waxaan jecelahay inaan doorkan uu noqdo doorkii garwadeenka in dhalinyaradu aad iyo aad uga qayb qaato siyaasadda oo ay dhalinyaradu ka dhex muuqato. dhalinyaradu waa xoogga iyo lafdhabarta wadanka. haddii dhalinyaradu ay dibadda ka joogto maartay siyaasadda ama waxaan la yiraahdaa decision making ama maartay marka la sameeyo waxay noqonaysaa wadankaasi wadan aan maartay horumar aad ku talaabsan. ummad walba horumarkeeda maartay waxa aad uga qayb qaata oo door weyn ka ciyaara waa dhalinyarada weeyaan. anigu wali horta anigu dhalinyaro isuma arkaan la kaftamay. أنا waxaan soo arkaa inaan da'da dhexe ahay. soo dadka qaar ba malaha wajigayga yar oo intaan iska dhalan yarahay ay waxay moodaan inaan u leeyahay nin yarahay ila maartay 46 years old ama 46 sanadood ayaan jiraa. rag badan oo imika madaxweyneyaalka adduunka ama prime minister ka ayaan uu ka weynaa. waxa weeye ma aha nin yar may nin weyn baan ahay. waxa ka mid ah shariifka dawladda Soomaaliya أنا كوي ما السنة دي ملاها الله بس رد كوي ملاها وحنو ملنا يسوق ملاها كوفية ده وكشده ده كمودان إنه وياه أنا ده كوفية بارك الشنة لكن وحويا لأني يرميه ويارجنا ما يقف لنا وان لا هاي لو تنسى النض إنك بدن بشقين هاي عالم كلنا كسر شقين هاي وحويا أنا وحنو سمينا فنتي ما هميد أنا إن شاء الله أما حكم إن شاء الله أنا من شغل وأنا سنة كهاي طبعا هاي ملحمي
laakiin waxa weeyaan baaqiga yimid dhalinyarada oo isdaba jooga oo runtii kala istaagi waayay ayay u kalifay markaa inaan aniguna intii aan gaariga shirka maartay dusha fuuli lahaa inaan shirka soo fuulo aniguna lafirkaygu siyaasiga Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyahan qurbajoog reer Somaliland ayaa sida uu sheegay waxa uu u yimid dalka sida uu uga qayb qaadan lahaa tartanka doorashada ee dalka isagoo una tartami doona gudoomiyanimada xisbiga mucaaridka ah ee udub.